ورقد ارتفاع انت كو قرن ugu talagalay inay ku baxdo warqada waxaan sida ka muuqato uga ku muujinayay inaan shaqadii iyo jagada iyo mas'uuliyadda aan u hayay dowladda federaalka afartii sano la soo dhaafay ee ku aadaneed hageenka hay'adda mas'uuliyadda aan maaragtay sameeyay dabcan meerigana waxaan yiraahdaa Soomaaliya ku mahmaada maaragtay kuleylka dabba ka keenay filaad hadda maaragtay qofka wuxuu baa keenay filaadu iskama dhacdo laakiin waqtigeeda saxda aan rabaa insha Allah inaan uga hadlo taruufaha ku xeeran filaadayda waxaan dhihi karaa afartii sano aan jooga meeshaas waxqabadkii anigu shakhsiyan aan qaban karay ama shaqadii aan islaaya bulshada Soomaaliyeed aniga iyo udgeyga iyo dadka maaragtay mas'uuliyadda kale ee siman way u idmadeen ama way sugayeen ama waa looga baahnay waxaan islayahay inaan cadad aad ku yar aan qabanay dabcan isu soo tarbaan sugayay waxaan islahay inta waxba isu soo taraya waxbana isu soo tarin marka waxaan dhihi karaa qaybay ka tahay ma wada ahan qaybay ka tahay sababaha aan soo casilay inaan de afartan ka bacdi arkayna inaan badayno waayahay iscasilaadaada dadkii aad u gudbiso madaxweynaha ugu horeeyo cabdisalaam ma ka aqbaleen madaxweynuhu dabcan safar uu jiraa wadooyinkii loogu talagalay waxa weeyaan madaxweynaha iyo wasiirka amniga ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha sugida dadkaas ay tahay inaan si maaragtay ugu gudbiyo wadadii maaragtay ay aadeen loogu gudbiyey dabcan waxaan rajaynayaa inay aqbaleen sababay hadda ku mucaaradaan dhammo ogiyo Soomaaliya qofka tagada laguma bariyo waa loo magacaabo dadku ku dagaalamaan jagada u dagaalamaan inta badan dadku Soomaaliyeed dadka la magacaabay dadkii taasilay aad waxa uu yahay dadkii taasilay marka fiiriso waaya marka Cabdisalaam waxaan doonayaa macadda warqadaadina waan akhriyay hadalkaagana si nadiif ah ugu macadda sababta shaqada ugu tagaysid marka laga reebo oraahda tiri dhariga karkarka waxa ka keena kuleelka marka dadka Soomaaliyeed ee aad la soo shaqeysay iyo kuwa ku taageersanaa intuu maxad u sheegayso aad leedahay shaqadan waan kaga tagay wallahi waxaan leeyahay Soomaaliyeed warqadee dabcan waqtigan u baahanahay aan ku faahfaahiyo waxyaabaha aan leeyahay weeygaasmay maanta inaan dhaho waxaan 2 daqiiqo 3 daqiiqo ku soo koobi kara ma ahan degadiidu waxay aad kale xigeenada suudeed oo hayna suudeed wax kasta ma sheegto qaranka xog badan baan u haynaa xogtaasna qaranka iskale qofna loogama caroodo waa wax qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed tahay inay ka dhaafin qofkii iyo dadkii loogu talagalay laakiin waxaan dhihin karaa ummadda Soomaaliyeed u sheegi karaa ummad yani waxaad xaq u leedahay in difaaco xaq waxaad leedahay in shaqadayda cadaalad iyo Soomaalinimo iyo sinaan iyo horumarna inaad heshaan amnigiina la sugo waxa ka tarta ku ah amnigiina laga sugo waan u jeedaan dhibaatada dhacaysa isla soo karaysa way kasii daraysa waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya ee cusub hadda wax lagu eedeeyo inaysan jirin oo dhihi karo dowlad cusub oo shalaba meesha qabsatay 100 maalmood uma u dhamaanin ama wax weyn ma dheereen waxay u baahan tahay dowladdu reformkii laga sugayay madaxweynaha qaranka ee Farmaajo especially ciidamada amniga militariga ha noqoto booliiska ha noqoto iyo nabad sugiddu reformkii sugayeen ama isbedelkii sugayeen waxaan dhihi karaa askari kastee maanta dhaliisanaya hadalkii ama qof kastee shacabee xiriir la leh inuu dareemi karo inay wax weyn maqayiin halkaas marka meesha joogto way dulman tahay dadkuna way ku dulmayeen askarta hoosteeda su'aal kale marka dowladdu waxaan tahay mas'uuliyiinta dowladda wasiirku waxba ma qaban karo oo wax weyn la soo kordhi karo waxaan dhihi karaa taliyuhu wax weyn soo kordhi karo arrinta meesha ka qorintanta waxa weeyaan Soomaaliya laga rabo in laga saxo waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha
واكاونتبيلتي in la xisaab oo la yiraahdo qofkan mas'uuliyadda loo dhiibay maxaa ku qaldan waaya cabdi salawaad mahadsantahay waan ku fahanay ujeedadaada iyo halkaad u socotid waan dareensanahay waxaan doonayaa marka adigu wadanka inta badan waad ka maqneed mar baad caafimaad u baxday deeta Soomaaliland laaban oo muddo dheer baad maqan tahay xagee baad ku maqneed markaad iscasilaysa Muqdisho maxaad u imaan weydo adigoo jooga wadankii aad u soo casilin weyday والله wax laga yaabo inaad Soomaaliyeed anigu wadanka walaas waa jirtay waqti ka maqnaayo caafimaad u maqnaay waxyaabaha hata shay kale waxa kamid ah qof caafimaad u maqnaay kaliyo waxaan soo maray xanuuno maaragtay aad u dhib badan dawladda Soomaaliya ugu sheegtay $1 inta ka qabanay mas'uul Soomaaliyeed ku magacaabnay Soomaaliya gar waan soo noqday hadda yani sanadkii tagay 2016kii dhexdhexdiisii aan soo noqday amalaan bishii June aan soo noqday 12kii aan wadanka imid iyadoo weli kaliya yar oo jagada hayo oo madaxweynaha xukumayo intaasna wadankan joogo hadda maalinta weeda ka soo noqday wadanka oo maarta ku soo noqday dalka Ingiriiska marka wadanka waan joogay shaqaan u joogay waa shaqaynayay gobolada wadankan tagayay caasimadan joogay مقنعنا كمان نغني وطنك لكن مرة هدابة بحي سيدو شقدي أتكتغيسو عبد الرحمن عبد السلام سومو وناكسنين ماشي شال حلك لغوغو ديبو لغوغو ريجين هذا نكو ريجيسو دن أد بحديد صلاة الصلاة بحالي لا سي كو قرطون با الله قال يعني لو مركا صلاة هذول اللي كو قفتا طبعا ظروفه خيرنا جيرا كو هبون تاع هاد ولد سيده اي تاعنا ولا فلقش marka waxaan dhigi karaa waxaan soo qaatay oo gacanta ku wado leeyahay wadalkii aan ka soo qaado waa inaan u celiyo wadalkii baa ma jiraan oo ka wato oo u celinayo shakhsiyadeeda soo baxay oo wadanka Ingiriiska caadi ahaan deganahay oo laga soo shaqo tagay aniga wadanka Soomaaliya waxaan ku soo noqday walaal waxaan ku soo noqday 2016 waagi maxaakiimta waxaan ahay sargaal maxaakiimta kamida dadkii dagaalamaya ahay dadkii wadanka u dagaalamay hadii abaabul dibadda noqoto yani qof Soomaalinimada u taagan oo aan ku soo biirno ahayn diyaar kale leeyahay madax bixin wadanka maanta uu tagay ma aanan ahayn dawladii maartay Sheekh Shariif waxaan ka ahay la taliyaha ra'iisul wasaaraha ayaa fayana Umar Abdirashiid yani waa soo shaqeeyo fiildiga soo joogo muddo dheer baa shaqeynay waxa la dhihi karaa oo de markaatigeedana leh ciidamadan hadda u jeedo alfa group la yiraahdeen meesha ku xareysan ee sugida waxa uu kaliya maanta laga sheegay in fi sameeyaan founder kudulka ay degan yihiin aan ahay